السلام عليكم أصحاب سو dhawaada kooxaha hackers oo taabacsan wadanka Iran oo la yiraahdo Handala Hack Team ayaa waxa ay jabsadeen emailka qaaska ah ee taliyaha FBI-da Mareykanka Kash Patel. Kooxahan waxa la leeyahay waxa ay qaateen xogta shakhsiga ah oo emailkiisa shakhsiga ah ku jirtay taliyaha FBI-da intii u dhaxaysay 2011 ilaa 2022 waa 11 sano. mararka qaar waxa uu kuwa wararka qaar ay sheegayaan 2010 ilaa 2019 marka adigoo xog ku dhawaad 10 sano ama ka badan ah oo emailka qaaska ee taliyaha FBI-da Mareykanka ku jirtay ayaa kooxahan hackerska oo Iran taabacsan oo la yiraahdo Handala Hack Team ay u dhaceen sawirada qaar iyo emailada qaar ay xitaa online ka soo galiyeen macnaha qofkaas waa la soo qarxiyo maqli jirtay macnaha taliyaha FBI-da Mareykanka ay soo qarxiyeen walow aysan ku jirin sawiradaasi wax isagoo anshax xumaa sameynaya laakiin dalxiis uu ku tagay Cuba iyo sidoo kalena Mexico sawirro uu galay ayaa ku jira mar isagoo sigaarkan oo laga isticmaalo Cuba oo sigaarka la yiraahdo waaweyn sanka saaranayo urinaya dala qamriya isagoo ku ag sawiran isagoo kursiyadan leecleecay reclinerka la yiraahdo ku jif adiga sawirro noocaas ay soo daabaceen iyo sidoo kale email la xiriiray shaqadiisa xilligaas marka arrintan FBI waa ay xaqiijisay laakiin waxa ay leedahay wax xog oo dawladdu ay leedahay lalama bixin because qofkan emailkiisa shakhsiga ah iyo emailka dawladdu waa uu kala duwan yahay midka emailka dawladda waa mid securitygiisa uu aad u adag yahay way adag tahay in la jabsado walow dagaalka Mareykanka iyo Iran ay ku jiraan oo san ahayn mid hub kaliya la isku adeegsanayo oo dagaalkan dhinaca internetkana uu dhinac socdo laakiin xogta dawladda markastaba aad ayaa loo ilaaliya laakiin hadda xogta lala baxay ma ahan mid dawladeed waa mid shakhsiga ah oo iska lahaa taliyaha FBI-da in Kash Patel oo emailkiisa personalka oo shakhsiga ah ayaa la jabsaday marka FBI-du horay ayay waxay u dul dhigtay in kooxahan la yiraahdo Handala Hack Team oo Iran taabacsan lacag $10 milyan oo dollar qofkii soo sheega xubnaha ka midka ah marka dawladdu waa ay raadinaysaa Mareykanka mana ahan oo kaliya in dawladda ay jabsanayaan xitaa in private sector-ka sida isbitaalada shirkadaha waaweyn ay u dhacaan marka hadoo isbitaal ah ama isbitaal weyn hadii ka waran inta xogtaadii la jabsado macaamiishaada xogtoodii dhan la helo waxaad ku qasbantahay inaad madax furasho dhiibto marka sidaas ayay ku qasbaan shirkadaha iyo waliba isbitaalada qaar ka mid ah xarumaha dawladda xitaa dawlado hoose oo loo dhacay ayaa jiro la jabsaday sida hadda St Paul sirigeeda ka dhacday sanadkii hadda la soo dhaafay marka kooxahan marka hackerska waxa la leeyahay hadda emailka shakhsiga ah ee taliyaha FBI-da Kash Patel ayay jabsadeen sawiradaasi iyo emailadaasi oo laakiin ilaa hadda wax anshax xumaa aysan ku jirin ayay soo bandhigeen marka ma laga yaabaa inay hayaan sawirro kale ama muuqaalo kale oo anshax xumaa oo taliyaha FBI-da xilligaasi marka ma uusan ahayn taliyaha FBI-da hadda Trump markii la doortay ayaa uu ka dhigay taliyaha FBI-da marka xogtiisii ayay gacanta ku hayaan emailkiisa shakhsiga ahayd laakiin ma ahan emailkii dawladda oo uu ugu shaqeynayay marka waa ay kala duwan yihiin sida ay sheegay emailka shakhsiga iyo midka dawladda ugu shaqeeyo marka wasaaradda cadaaladda arrintaasi waa ay xaqiijisay inay baaritaan sidoo kale ay ku wadaan marka arrintaasi ayaa sidoo kale maanta soo dhacday iyadoo welina dagaalka labada dhinac u dhaxeeya uu socdo laakiin Mareykanku uu leeyahay wada hadal ayaa noo socday Iranna arrintaasi ay beeninayso leedahay Mareykanku isaga isla hadlaya umaleynaa inagu cadawgeena lama hadlayna sida wasiirka arrimaha dibadda ee Iran uu sheegay waxyaabaha kale ee soo kordhay stay tuned insha Allah nabadii